بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض عافماتك هذه بان سلامية وأنا كفر أحسن أنا كسوقي بلا شركينا وايو شرارك قار وحاري مادها إن أنا أقوانك كبصده ووحكا فائديسته وأنا باهنا هي هوش هاي قبطان مركا مانتا 10 كيل كوباد أيها كفائديستي وإذا ما أنتر إنه شيء مشاهد أدنى وأتلي لذا كان هقاطته waxaan xoojinayaa abiilka ay u direysay WHO iyo caalamka iyo ku hay'adaha laga joogaba oo aan ku taageerayaa inay hawlaha iyo haweenka Soomaaliland lamdiyihiin kuwa adduunka oo ay xaq u leeyihiin in laga daweeyo oo laga hortago labada cudur ay sheegtay gaar ahaan ka kansarka fayraska ah oo caalamku naga caawiyo si loo hortago waa taageerayaa waan codsanayaa كلامنا فقد الرضا هذا بربر لنا هاي إنقولوا بركين كسب بحرا أي نار أوران هواين كنا نوم قوضي عالم كو وإحنا قاعد شيء دول كذا الماء عادي هاي وين نقول عيب ده نحب السماء إن هواين كنا قاعد شو ينا فقد الرضا الماء عادي هان كنا لان وعيب ندوك هلا ومشتا وأحلى عم ساوي وأنا عيب إنه صار عذرنا يقرأ السماء وأنا كاذب دون أيضا أنت هو حنقول فيها taageerada aan raaciyay adna labada mawduuc ee maanta ka faa'iiday markaan tago jaamacadaha meelaha waxbarashada caafimaadka oo kale maalin walba waxaan ka qaataa waxoogaa cashara oo qaranka u dana waxaan ka mid yahay hay'adaha ka shaqeeya nolosha dadka iyo horumarkooda casharkan aan ka faa'iiday oo wasiirka caafimaadku halkan ka yidhi oo doonaya isagana inuu ka faa'iidaysano wasiirku wuxuu yidhi waxaan qabanaynaa shir waxaa laga hadlayaa medical ethics akhlaaqdu way naga xumaatay dhakhtaradii halkan iyo halkan marka waa laga taa waan ka yarnahay waayo dhakhaatiirta iyo aqoonyahankii waa meeshii akhlaaqda iyo ethicska loo sii dooranayay marka haddii iyaga laga deeriyo wallaahi xaalkeenu waa bal halkaa aad halay nooga geejiyo idinkana waa ku ceeb in la yidhaha dhakhaatiirtii iyo macallimiintii iyo eegas la barayaa iyo jaamacadihii waxaan islahaa markuu ethicska soo qaaday inaan farta taago doonka wasiir qolada iyada siyaasiyada iyo xisbiyada u furmada kala ethics caafimaad ethics bahdayada siyaasadda mikrofoonka lagu faray bal hadda ethics mikrofoonka baro qofkan intuu telefoon mikrofoonka qaato baalka mobilka isku sawiro wax walo laga xishoodo oo dhaqanku diido oo diintu duwido oo caqligu diido ku hadlo habeenkii intuu muraadka daawado ku farxayna ma arkaysa waxaan sameeyay haddaba ceebta adduunka weerad buu sameeyey war qolada iyadan baa u baahan ethicska qolooyinkiina jaamacadaha iyo medicalka iyo waa kaftabay saare bal loo soo gurmada oo wixii ay sheegaysay iyo balgeer daweeyay lahaydeen albaabka dhowr jeer ma la furaa bal ninkan intuu cay iyo foolxuur iyo waxaan dhaqnaan ku hadlaystaa wada ku faraxsan maxaa u malaynaysaa markaa muxuu noqonayaa cudurrada ay sheegayseen allaha noo saaro bahdayada hadalka iyo siyaasadda qaabilsane bal laga warhaya haddaa ethicska baaraysaa intaa kadib waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa bahda caafimaadka dhammaantiinba shirkan in ay isugu timaadeen idinkoo xirfado kala duwan ganacsi iyo dad maaragtay private business iyo wasaaraddii inaad u gurbateen hawshiina aad caafimaadka u haysaan isugu timaadeen oo ka tashanaysaan sidee ummaddiina loo daweeyaa sidee loo daryeelaa aad iyo aad baan idinku hambaleynayaa waan idinku garab gelaynaa waanu ku faraxsannahay waanu idinku dhiirinayaa waxaa kaloo doonayaa inaan idiin qiro adna uur maahe ilaa inanta maanta baranaysaa kalkaalisada ama umurisada ama inanka baranaya kalkaale caafimaad ama first aidka inaad dhammaantiin hadday cid mujaahid tahay ama mujaahidiintiin qof waloo caafimaad barteeda mujaahid waa carabi ereygu wuxuu ka yimid jaahada fii sabiili illaah iyo jaahada fidee maaragtay adduunkaba dar ilaahay u dagaalamaysa wax ummadda iyo diinta iyo qofka iyo dalka u wanaagsan u dagaalamaysa marka hadday intaa u dagaalamayso qof kastoo dhakhtar adduunka halkuu doona ka joogo dalku doona ha joogo diintu doona ha haysto wuxuu u halgabayaa u dagaalamayaa bini aadmiga wanaagiisa caafimaadkiisa iyo horumarkiisa marka xaq buu leeyahay magac kastoo wanaagsan in la siiyo qofka caafimaad ka shaqeeya iyo ka macallinkiiba labadaba ismaacinaya waa mudan yihiin
hambalyadaa kadib oo idinku maanta xafladda awleedihiin waxaan soo dhoweynayaa dhammaan martisharafta ka timid hay-adaha dalka ka shaqeeya gaar ahaan martisharafta ka timid dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee aynu u wada shaqayno jaarnimada waxaan ku faraxsanahay oon ku qadarinayaa dowlad deegaanka soomaalida aynu jaarka nahay inay nabadda inagala shaqeeyaan oy horumarka inagala shaqeeyaan oy caafimaadka inagala shaqeeyaan oy si bini-aadnimo oo dhow oo walaaltinimo inoo shaqeeyaan aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa taasaanaynu ku horumaraynaa annagana intaa in leeg baa naga filanaysaa shacab iyo xukuumadba walaaltinimo nabad iskaashi wada shaqayn shar oo dhanna aynu ka wada hortagno khayr oo dhanna soo wada dhoweyno sidoo kale jaarkeenna oo dhan dhinac walba intaa kadib hambalyada iyo soo dhoweynta dee malaa aniga iga filamaysaa inaan caafimaad ka warrabo oon sheego caafimaadka iyo dhakhtareed dee idinka idiin sheegi maayo laakiin tu kalaan idiin sheego u baahan tihiin oona wada baahannahay dadka mutacalimiinta ah ee aada cilmiga u barta macallimiinta dhakhtarada injineerada abwaanada soo qaad dadka aada fikiro dhamme hal aan isleeyahay malaha sax maaha bay qaataa intaa waktigiisa wuxuu kulmanaya bini aadamka horumarkiisa had iyo habeen wuu shaqaynaya nin baanu kabtananu saaxiib noo dhakhtara iga yar weyn laakiin aanu aad wada isnaqaano markaa waxaanu isku qabsanay labadeeda shaqo dadkuna markay eegayaan labadiiba dee xuntii bay dhataano labadiina waa cadho badantiin waxba nagu sheegaano laakiin anaa isaga yar dhaama dhakhtar ismaaciil baa la idhaha lafuhu kabaa mala waa taqaaniin inuu joogay kala mooyaane tu kalena waxaan taano labadiina geel jiraa tiraad mala anu geel isaga waan ku dhaama isaga anugu waan keelka magaalsana waxogay marka waxaan isku qabsanay siyaasaddu waa waxun war nagala tagaan oo imana waxaad kustaa waa maxay anna waxaan ku idhaahdaa horta dhakhtar haddii siyaasadda la waayo oo tale la waayo dadku ma jiraya haddii caafimaad la waayo yaa dadku miyuu jirayaa maya haddii tale la waayo ka warramo haddii tale la waayo dhakhtarkii la heli maayo oo macallinkii la heli maayo oo nabaddii la heli maayo oo horumar iska daayo qof meelu seexda heli maayo meeluu ku tukado haddii tale la waayo siyaasadduna waa taladii markaa dhakhtaradu rag iyo hablaba markay joogaan ay dhahdaa inaga daaya siyaasadda maxaa la sheegaya dhakhtarada haddii tale la waayo siyaasadda waayo hawshiinu cidlay ku dhacaysa waxaad tidhahdaa markaa ku qoraysaa boorka qof waloo dhakhtaraba jaamacad college farmasi dhakhtar caafimaad waxay ahayd health policy maxaa policy u qaadaysa marka dhakhtarka mar ayadka qaranka u diidaysaa ay uga baxsanaysaa policy waa dhakhtarka hawshii caafimaadka isku qabanaysa tii qarankanu ka wada hadlaynaa marka waxoogaa waqti yar baan kaga qaadayaa amba tiina waa dhegeysta hadda taadin haystiidsiinida dalku maanta waa nabad ilaahay mahadii sanadkana roob badan buu ahaa nabad badan waa degan yahay 30 sano Soomaaliland marasay dheeraad muruqeeda adkaaday cadawgeeda waa ka adag tahay warwar ma qabto cid ilaahay buu ibn aadam oo waxyeelay kalaam wuxuu qaadi kara cadawgeedana maanta warwar kama qabto way jir dhigaysaa gudaheedana way isticmaashahay gudaheedana waa dal midaysan dimuqraadi ah tala wadaag leh laakiin dadka qaarkii murankeena markay arkaan ay yiraahdaan waa meel xun Soomaaliland har ceeb bay leedahay oo aanay af Soomaali dadka ku hadla ay kaga duwantii markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan miir qabin ay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaalida inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cuna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka magaalaha muqdal gaarka ay dalka maanta dad badan baa waxay ka deereeyeen ka hadda wax baas ka sheega horta dawladda waxaynu u samaysanay ee caalamku dawladaha u samaystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dawladda loo samaystay gebigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasadda oo yiri oo xisbiya loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo samaystay caalamku dhan baa ka badaysanay dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteena guriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisa aroorba buu ka jira hooyadii inanteeda ugu yar oo maxad quraacdu la dahday baa la isku laayaa buu ka dhacaa
dalka oo dhanna markaa mar walba wax jirta mashkilad xalinaya waayo ilaahay baa si adduunka u abuuray sharkiyo khayrkaas ka rabsacda markaa waa in aan la diidin haddii aad maqasho halkaa hawl baa laga haya qof qaloocan baa jira koox qaloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dowladda u xilsaaran waxa inay qabato waxa kale dowladdu u xilsaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu markaa dowladda fadhuma yaalla 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogan tahay hawsha markaan soo dhawaado geeskan Afrika maanta aynu ku noolahay bal amuurta ilaahay caalamka oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dowladii waaweynaa Mareykan China Ruush Turki Iran maxaan ku Sacuudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tuubayo geeska Afrika soo jeeda imaka uur maaha waa warigeedii Allahi markii isticmaalku dalka boobay meeshii loogu soo horeeyay ee adduunka oo isku herdiyay geeska Afrika baa waayo ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inagu abuuray ka dhigay juqraafi aan meelaha adduunka ugu muhiimsan baddaacas waxa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan 700 oo bilyan bucsharo qiimaheedu tahay oo Yurub iyo kala socoto bariga Aasiya marka dal kasta ilaa Mareykan ilaa China way saamaysaa meesha aan deganahay noloshooda iyo dhaqaalooda waxa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen ugu yimaadeen laba qodob oo kale geeska Afrika oo badiisa iyo barigiisaba inta geeska Afrika isku dhahdo barwaaqo badan laga daawanayo hadday tahay macdan hadday tahay shidaal hadday tahay badda oo dawlad wara xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka saakentay waxa kale oo muhiim oo adduunku maanta waxa soo diyaarada iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weey geeska Afrika nin waliba waxa ka doonayaa inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in alliya inta la sheego xaq jir ama laga baqo ama colaad ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqaale waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sano u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareerayna bal yama waxa ka dhacay waxay goostaa 300 kilomitir waxaan ahayn 200 kilomitir bal Soomaaliya eeg waxa ka dhacay waa jaarkeena waa isu furanahay dhibaatada inta leeg ma ka socota mar walba cid kasta si kasta ku baadaya waxa ka oogan xasarad marka qolo waliba waxay saday xasaradeeda lah iska ilaali loolanka caalamiga ee maraya dawladaha ku jira geeska Afrika oo fara badan oo dhamaantood taag daran waana mid xoog maanta adduunka ay korshadaan lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara ciidda isku tashata midaysan garanaysa si mawjadaha socda iyo adduunka aan isla socda halku dantiisa ka baarhay ka bixi lahaa qofkii dawladii isku tashata taladeeda midaysata khilaafkeeda hoosana yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sanadaha soo socda halbeega Soomaaliland halkee ka joogta ilaahay mahadi waxaan qabaa inaan meel aad iyo aad u wacan ka joogno ma ihi dadka mutashaayimka ah ee rajada xun ee waxa ay waxa saaranay u fiirsa hareeraheen oo dhan Djibouti Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafay intaba waa la taageeraa intaba baanka adduunka wax ka mahadaan intaba waa la garab taagay Soomaaliland sodon sano ilaahay mooyee ciidana ma ictiraafsana ciidana wax xumo oo gola waliba cadal xoog oo la dagaalamay hadana بفضل الله وحمده إلهي يوم دي سواء مدينسان يتشجعنا أي أن كتاجر النور بس كجنا وحرك عليه Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn lixkii midoobay ay ka dutay midnimada isdiray midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar ah u dhisatay 30 sanadood waa la ictiraafaa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriye 140 milyan busi iska dhaaf jimcada qurbo ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg
waxaas u iyadoo la geliyay oo intaasoo garab haysata oo si walba loo taageeray maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda Puntland baa dhuusa wata maanta la qarxiyay waxaana wadaa dawladda farmaajo ee waxa soo taageerada siiyay ayaa fidmadaas oo dhan wada oo markay intaasoo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa waxaas waa tababar kuwa ku soo tababaraysa oo ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland way soo diyaartaa colaadeeda oo ay ku soo maqan tahay Soomaalilandna waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baan waa aragnaa waxa soo wada farmaajo gudaheena dimuqraadi baan nahay xisbiyeen nahay muranka ku jireeya doodu way jiraysaa laakiin waxaynu u baahanahay inuu iska waarino waxa la yiraahdo wargartaada sheego oo turxaan la'aan sheego marka aanu madaxweynaha ahay qaranka u dhaxeeya ee dardaaranka qura bixinaya waxa weeye aanu doodno sharcigan isku qabsanno dantaan isku qabsanno laakiin doodaada iyo murankaaga turxaan la'aan ee la'aan sheego si gobonimo waashi maalmahan waxa maqlaysaa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga baa la jabiyay raaci mayna go'aanka baarlamaanka soo baxay gartii waa sharciga baa laga booday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ugurin waa caadi qofku hadduu wax toodo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay yiraahdeen komishanka cusub ee doortada shaqeynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiin haddii qodobka gudooda waxay yiraahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa daba laga dhigin haddii qodobkaas oo qoraal ay hayaan oo lagu heshiiyay anigu mana saxiix qodobka mana ugu kubanina heshiinine oo ma jiraan leeyahay haddii hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaan qodobka ku heshiiyay anaga ka daran haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa dawladda wax run u sheeg qodobka lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay in la soo doorto xubnood cusub sababta loogu dari waayo kuwa hore lagu soo celinaa waa sharci aanan dhaaf karin haddaan xisbiyada nahay ayaa yaala xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sanadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhamaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxay waxa saxay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga qaranka wadani gudoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan gudida guurtida waa ixtiraamayna saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxay mudane gudoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob haddii wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye baxa qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubinta annagaa diidan haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu taladu murarsadaa waa kalitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana labadaa qodob isu keeneeg sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna waa cid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweedii midna arrintiisa waa faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wacid ku keenay waan gudbiyey guurta labadoodina waan gudbiyey saddexdii aniga ayran qotana waan ku daray waxa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oo ama u bareero anoo danteeda riixanaya ama bini'aadam qaldamo waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaas qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeli maynu wadani yidhi dictaatoriyadda ka weyn baarlamaanka yeeli maayo xagee lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibir wahay qolada jihaadiya wataa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo gudoomiyey baarlamaanka ugu weynaa saxaxada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurto sharafeed milkiye maamus ku leh
تبى أرنتها كفير سياري ما يبرلمان وارن أضيع واربلدنا كجرنا كشعب ويرو أنا وبرلمان كحلو أقوله هذا كاي بسعليه وأقوله labada qodob garta ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno ayda nin waru yahay da waru yahay ba in laga sii daayo midiyaha dhaqan gooniya ma dhaqankeena noo ahay dhaqan la daawado ugu farxan maaha in la saacado wax badan baynu sunahay haddaynu ku dayna gaalada dimuqraadiyadda Mareykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah Ingiriiska iyo dee waa ku jabayna iyagu dimuqraadiyadu waxay gaadhay inay taa laba nin hays guursadeen haddaynu tooda ku dayno halkaas inay la gelaysaa bar hadda loo fiirsado waa dimuqraadiyo waxa doonaan sameynaya war dib loo fiirsado dadka raacay dhalinyarada wariba taalantaasaan kala yahay waxa ku soo gabagabeynaya Soomaaliland oo warwari maayo dawladda xamar ka dhisan oo aad ogtiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada barbara mashruuci oo dekada laga bilaabay waxa isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carabta u jareynaa meel bay ka dacweysay waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa loo jiray Special Fund for Somaliland oo European ku isku tageen oo Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray maamulan jirtay warqad bay qoreen anaga la ictiraafsan yahay waa gobol laga mid ah cunaha la qabanay hadeen diidaanaha gudbinina waxa ku xigtay ECAW isku dayaan diyaaradaha halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadaan cilaaqaadka loo jiranayaa war waxa xuna gacanta ugu jira meega geebayna soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Somaliland gudaheeda ay hada sidee u degtaan meel Somaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani ka kamid ah amaanaan isla taagaan kula duldhacaan xamar maanta warbato waxa sameysaba amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garow cadiga koobaad ee waqti ba waxaanu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubanisay isagoo oon xukumin meesha la yiraahdo fila Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan Soomaaliyeed ma haysta dhaafsiyaasada ka gaalada miyaan ku taasayna maanu raacnaa waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo ayaan ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtiraano waxaan ka rajaynayaa ku darayaa aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkiru khasaar noqonaya taas waa ku baran Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda kabada ka karumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobonnimadooda iyo qarannimadooda sida aadna ay naftooda u horayaan ayaan aad ugu hambalyeeyaa Soomaaliland ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku rajaynayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.